caasimada koonfur galbeed ee degmada Baraawe iyo sidoo kale wacyigelinta COVID-19 gudoomiyaha maamulka degmada Baraawe Cumar Sheekh Cabdi Shafaana iyo sidoo kale xubnihiisa maamulka iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ayaa degmada Baraawe ka wada wacyigelinta bulshada ee ka hortagga iyo sidoo kale xakamaynta cudurka coronavirus. xubnaha maamulka iyo sidoo kale qaybaha caafimaadka ayaa waxa ay socod dheer ay ku soo mareen qaybo ka mid ah xaafadaha iyo sidoo kale degmada iyo suuqa weyn ee magaalada. waxa ay halkaasi ay bulshada ay ka wacyigeliyeen ka hortagga cudurka iyagoo bulshada dad ka mid ah oo safar markaasi ku soo galay magaalada ka cabirayay qalabka lagu ogaanayay cudurka COVID-19. shacabka magaalada Baraawe ayaa aad ugu farxay howlaha uu maamulka ka wado degmada Baraawe oo ah caasimada koonfur galbeed ee Soomaaliya. degmada Baraawe labadii week la soo dhaafay waxa ku geeriyooday 27 qofood oo lagu arkay calaamadaha COVID-19 sida uu warbaahinta u xaqiijiyay agaasimaha guud ee isbitaalka degmada Baraawe Dr. Cabdalla. magaalada Baraawe waxaa si dardar leh uga socda wacyigelinta loo sameeyo bulshada qaybaheeda kala duwan taas oo lagu xakameynayo cudurka coronavirus.